بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال كسو دوادا برنامج أينكو إيجي دونو إن شاء الله تعالى قابك أدو كسبان كرتو أما أدو هنان كرتو داد فربدان كدبنا أدو قدعين كرتو فكرة دادا برنامج كاغا aragtidaada iyo wixii marba aad rabto in aad u gudbiso iyo sida ay dadkaasi kugu kalsoonaanayaan waagi hore walaalayaal waxa jirtay fikrad ilaa iyo haddana dabcan way jirtaa fikradaasi in ninku hadii uu yahay nin dheer oo qurux badan sidoo kalena uu codkar uu yahay oo hadli karo inuu ninkaasi uu noqon karo nin hogaamiye ah waxa kale la rumaysnaa in gabadhu markastay gabadh qurux badan ay tahay gabadhna dhawaaweyn ay tahay in ay soo jiidan karto rag fara badan ay soo jiidan karto waa suurtagal in fikradaas ilaa iyo hadda waxay ka jiraan hase ahaatee waxa cajiib oo la yaab leh dad aan sifada noocaas ku sifaysnayn ayaa waxay haddana kasbadaan ama ay hantaan malaayiin iyo malaayiin qof subxaanallah nin maaragtay aan sidii sifadii nin dheer oo aan qurux baad doonaan shaqo ku lahayn oo malaayiin qof haddana maaragtay kasbaday oo fikradiisa iyo aragtidiisa ka dhaadhicinaya ayaad arkaysaa markaa subxaanallah ha noqoto markaa qof siyaasi ama mid ganacsato ah oo baac mushtara oo raba badeecadiisa in laga iibsado macaamiil iyo customer badan raadinaya ha noqdo markaa qof wadaada oo raba inuu diintiisii oo xambaarsanaa uu dadka u gudbiyo maxay adeegsanayaan waa maxay farsamada iyo xeelada iyo qaabka aad ku kasban karto ama aad ku hanan karto dad fara badan ninka la dhaho magaciisa Dali Carnegie wuxuu ahaa nin u dhashay wadanka Mareykanka wuxuu qoray kitaab magaciisa la dhaho How to Win Friends and Influence People sidee baad u kasban kartaa saaxiibo badan sidoo kalena aad raad iyo saameyn ugu samayn kartaa dabcan kitaabka wuxuu kaga warramayaa qodobo fara badan oo qofka hadii uu la yimaado oo ku dhaqmo u saamaxaya inuu qofkii uu kasbado dad fara badan oo dadkaasina ay la saaxiib noqdaan oo ay ku kalsoonaadaan haddaba kitaabkaas inagu qodobada ugu muhiimsan ayaan ka soo xulanaynaa sidoo kalena waan islaamaysiinaynaa kitaabka ashahaadada ayaa loo qabanaya qodobadana ashahaadada ayaynu qabanaynaa oo waxaynu mar walba soo qaadan doonaa insha allah tusaalayaal islamisation lagu sameeyey oo la islaamiyey maadaama aynu nahay dad muslimiina 10 qodob haddii aad la timaadid insha allahu tacaala waxaad ku guulaysanaysaa in aad kasbato oo aad hanato dad aad iyo aad u tiro badan oo fikradaadana aad ka dhaadhiciso qodobka koowaad waxa weeyaan ha murmin muranku mar walba waxa weeyaan midho dhal male wax midho ah oo kasoo go-an ma jirto fikrad baa maaragtay aad qabtaa ama caqiidad rumaysan tahay ama waxbaad aaminsan tahay shaygaas qofka kale ee ka soo horjeeda isaguna waxa dhici karta inuu aragtidaada mid ka soo horjeeda uu qabo adigu haddaba muran markuu bilaabo hala murmin qofkii mar haddaad muran aad gasho waxay hadalku isu bedelayaan mindi ku taag marka labadiinii waxaad kala faa'iidaysaan male adiguna wixii aad islahayd qofka ka dhaadhici ama aad u sheegtid waxa weeye waqtigii uu kaaga lumaya murankii iyo maaragtay arrintii aan midho dhalka lahayn tusaale haddaynu soo qaadano sayidina ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim ilaahay quraankiisa wuxuu inoogu sheegay suuratul baqara suurada labaad ee quraanka kariimka in nin boqor ahaa uu la dooday oo uu la murmay nebi ibraahim alam tara ila alladhi hajja ibraahima fi rabbih an ataahu allahu almulk id qala ibraahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit wuxuu ilaahay u dhahay ma aragtay kii la dooday nebi ibraahim oo nebi ibraahimna uu dhahay aniga rabbigayga ayaa waxna nooleeya waxna wuu dilaa wuxuu rabaa marka nebi ibraahim inuu tusiyo boqorkaasoo ka talin jiray wadanka baabil oo ciraaq iminka loo yaqaano oo la dhihi jiray magaciisa namruud inuu ilaahay ama rabbiga ibraahim uu yahay rabbi awood u leh inuu waxna nooleeyo waxna uu dilo boqorkii haddaba namruud ee gaalka ahaa isagoo murandoona oo marka waxa weeyaan aayadda ilaahay diidan ayaa wuxuu yidhi qaala ana uxyi wa umiit wuxuu dhahay aniguna waxna waan nooleeya waxna waan dilaa kolkaa 2 nin ayuu u yeedhay oo jeelka iyo xabsiga ugu jiray mid ka midana wuu dilay kii kalena wuu sii daayay markaa wuxuu dhahay 2 nin midna waan dilay midna waan sii daayay oo waan nooleeyay
nebi ibraahim fiiri mowqifkiisu markuu halkaa taagan yahay wuxuu awood u lahaa inuu la murmo oo uu dhaho dilka aad dishay ama nolosha aad noolaysay iyo nolosha ilaahay wax nooleeyo iyo dilka ilaahay uu nooleeyo isku mid maaha laakiin markii uu arkay inuu ninkani uu yahay murandoon isagoo oo aan bedelin caqiidadiisii isagoon bedelin iimaankiisii isagoon bedelin fikradiisii ayaa keliya wuxuu bedelay tusaalihii uu soo gudbiyey iyo qaabkii uu u gudbiyey tusaalihii hore oo tusaale kale ayuu soo qaatay muxuu yidhi qaala ibraahimu faina allaha ya'tii bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib fabuhita aladii kafar wuxuu nebi ibraahim uu ku yidhi rabbigaygu aniga qoraxda wuxuu ka soo saaraa dhanka bariga adigu ka soo saar dhanka galbeedka ilaahay wuxuu dhahay kii gaalka ah halkaasuu ku baaba'ay xujadiisii iyo murandoonkiisii marka qodobka koowaad waa maxay haddaad aragto sheekadu inay muran ay noqoto ha la murmin adigu dadka si aad u kasbato dadkaas ama qofka fikradaadii iyo aragtidaadi aad uga dhaadhiciso taasi waa tii koowaad ta labaad waxa weeyaan ha ceebaynin dadka ama ha dabagelin qofka ibni aadamka ceebihiisa annagu kabi ibni aadam ahaan qof kastaa wuxuu leeyay goldololooyin iyo ceebo ayuu leeyay ceebahaas dadku ay leeyihiin iyo ama qaladaad yaryar oo iska basiida oo dhaca dadka laguma mashquulo ceebahooda iyo qaladaadkooda ha ku mashquulin subxaan allah haddii aad ku mashquulsho dadku ayagaa kaa caraba badan ayagaa kaa hadal badan ayaguna waxay ku mashquulayaan ceebahaaga iyo iyo waxyaalihii maaragtay aad necbayd in bulshada loo soo bandhigo waaye tusaalayaal baynu soo qaadanaynaa maalan tusaale waxaan ka soo qaadanaynaa sayidina nebi sala allahu calayhi wasalam ayaa isagoo la jooga saxaabadiisii ayaa saxaabadii nebiga ayaa waxay arkeen ninka la dhaho cabdillaahi ibnu mascuud radiallahu canhu oo geed markaa waxa weeyaan caday ah soo goosanaya marka geedkii cadayga uu soo geysanayay dabayl baa timi marka dabayshiiba waxay qaaday gebigiisiiba ninkii cabdillahi ibnu mascuud ahaa saxaabadii nebiga la joogtay baa qososhay wuxuu dhahay rasuulku maxaad la qoslaysaan waxay dhaheen waxaanu la qoslaynaa diqata saaqayhi ninkani siduu cagihiisu u dhuudhuuban yihiine caatada uu u yahay oo dabayshu ay u qaadanayso nebigu wuxuu dhahay ma taqaanaan wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay ilaah haween baan ku dhaartay lugihiisa aad arkaysaan waxay kaga culays badan yihiin miisaanka maalinta qiyaame buurta uxud bal waxaad qiyaastaan subxaan allah nebigu haddii uu ka macooda ama saxaabadiisii kale qososhay hadduu la jirkooda loo qosli lahaa maxaa ku dhici lahaa ninkii la dhihi jiray cabdillahi ibnu mascuud radia allahu canhu diiqad buu dareemi lahaa caduu dareemi lahaa coqdad baa ku beermi lahayd laakiinse subxaan allah ceebihiisii maaragtay la sheegayey wuxuu nebigu ugu bedelay ammaan iyo maaragtay arrin kale oo madiixa ayuu ugu bedelay sala allahu calayhi wasalam arrinta noocaasa haddii aad la timaado oo ceebaha dadka aanad ku mashquulin iyo khalqiga ilaahay siduu u abuuray aanad ku mashquulin waxaad ku saamaxaysa inaad ku kasbato kuna hanato dad fara badan weligaa marka iska ilaali inaad qofka khalqigiisa iyo makhluuqiis ilaahay siduu u abuuray inaad wax ka sheegtid hadhihin wuu madax yar yahay wuu indha yar yahay wuu san yar yahay wuu dhaka yar yahay wuu dhega yar yahay wuu daba yar yahay wuu calool yar yahay waxa yaan laga maqlin haddaad lagaa maqlo adigana waa lagugu mashquuli adigoo lagu leeyahy wuu caga yar yahay oo wuu fara yar yahay oo wuu xoolo yar yahay unbaa la arki doona waaya qodobka saddexaad ee ka mid a asbaabta keenaysa inaad kasbato dadka waxa weeyaan qiro qaladkaaga qaladkii aad gashay waa inaad qirataa waa inaad noqotaa qof kalsooni leh waa inaad noqotaa qof raganimo leh oo awood u leh haddii aad qaldanto inaad qaladkaaga intaad dadka hor timaado waan qaldamay dhihi karaya maaha sidii ninkii macallinka ahaa ee intuu qaldamay ardayda wax qaldan ugu ka dhaadhiciyey kadibna ku adkaystay nin baa jiray markaa macallin buu ah macallin afka ingiriisiga ayuu ardayda bariyay markaa wuxuu u qorayay erayo iyo kelmado vocabularia oo afka ingiriisiga a boy waa wiilka a girl waa inanta a house waa guriga markaa mid ardayda ka mida ayaa gacanta taagay macal warba maxaad u baahantahay buu ihi wuxuuhi macal maxaa lagu dhahaa afka ingiriisiga hadhuudhka maxaa lagu dhahaa afka ingiriisiga macallinkii madaxuu isqabtay subxaan allah hadhuudha war muxuuna weydiinayay dabadeedna ardaydii intuu kusoo jeestay macallinka ayuu wuxuu ihi war bal intay tiri iyo xaddi leeg yihiin ee aanay garanaynin hadhuudhka waxa lagu dhahaa afka ingiriisiga bal fiiriye labadii ugu xariibsanaay oo meesha fadhiye buu ku dhego war shalay maanan idin dhigin hadhuudhka ardaydii indhahaysaa leeyihin macallin dee ma garan anagu hadhuudh ma garanayna hadhuudh markii dambe ayuu soo dhaqaaqay oo samuuraduu ku qoray ahatut waa hadhuudhka subxaan allah laa ilaaha ila allah fiiri haddaan qofku qaladkaaga aanad qiranin
waxay kuu saamaxaysaa inaad waddada adag aad martid adoo runta iska sheegi lahaayo waddada fudud mari lahaa ayaa waxay kugu kalifaysaa inaad waddo qaldan aad martid oo maaragtay waddadii adkayda subxaan allah sidaa aawadeed nabigeenu wuxuuna bare calayhi salaatu wasalaam inuu qofku uu qirto qaladka uu galay ducada uu inagu yidhi ku dacayso waa maxay waa ducadii ahayd abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u bidanbii faghfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahayo waxaan qirayaa nicmada aad korkayga ku nicmaysatay waxaan qirayaa dembigii aan kaa galay ee dembiga ii dhaaf cid dembi dhaaftaana ma jirto adiga mooyaane nebigana wuxuu dhahay ducada haddaa ku ducaysataan maalin oo maalinta aad dhimatid dakhala aljannata janno wuu galay maaha wuu geli doonaa ama wuu galayaa maaha wuu galay already wuu ku jiraa jannadii hadduu habeen akhriyana oo uu dhinto habeenkana dakhala aljannata jannuu galay maaha wuu geli doonaa ama wuu gelayaa wuu galay already wuu ku jiraaba jannadii subxaan allah wuxuu ina barayaa nebigeenu qaladkaynu galnay inaanu qiranno qaladna cidda laga galo ee ugu weyn waa ilaahay subxaana wa tacala wixii aad ka gashay u qir ilaahay waan qaldamay qaladka aad qirataa macnaheedu maaha dullunimo iyo xaqirnaan ku fuulaysa waa kalsooni aad naftaada ku qabtid iyo raganimo aad dadka dheertahay qodobka afaraad ee markaa waxa weeyaan kuu soo jiidaya ama kuu saamaxaya inaad dadka aad hanato ama aad kasbato waxa weeyaan waa daawada qadhaadh malab ugu dar daawo qadhaadh malab ugu dar daawo qadhaadh sidee malab loogu daraya carruurta yaryar markay yaryar yihiin oo ay xanuustaan dabcan dhakhtarku wuxuu soo qorayaa daawo feeroon ah oo qadhaadh buu soo qoraya carruurtu ma rabto markaa inay daawada ay cunto wayna ka muraara dilaacayaan oo ma rabaan inay cunaan marka waalidkii muxuu samaynayaa wax yaroo macmacaan ugu daraya nacnac yar buskut yar marka xalwad yar malab wax yar buu u raacinayaa kadibna daawadii qadhaadheed ayuu siinaya waa saas oo kale haddii carruurtii ay aqbali weyday wixii qadhaadha ay diideen bal qof weyn oo qaangaadhana sidee baad markaa intaas tidhaahdid wax u sheeg oo aad qallafsanaan iyo adadayg iyo dhagaxnimo aad istidhaahdid wax ugu sheeg ma waxbuu kaa qaadanaya waa maya saasoo kale haddaba malab ugu dar daawada qadhaadh oo qofka markaad la hadlaysid marka hore ammaan u soo jeedi ereyga ammaantu waa sida kalimaatun sixriya waa erey sida sixirka oo kale ah qofka haddaad ammaantid markaad rabto inaad wax u sheegtid wuu kuu soo jeesanayaa qalbigaaguna wuu ku furmayaa tusaale ninbaa waxa uu ahaan jiray boqor ninkaa boqorkaa habeenkii buu riyoodayo wuxuu ku riyooday subxaan allah isagoo ilkihii sare iyo ilkihii hoose wixii gaws iyo iligba uu lahaa ay ka soo daateen subaxii markuu soo kacay ayuu dadkii riyada fasiri jir u yimi wuxuu dhahay war riyadii inay fasira ilkiiba iga daateen ninkii maaragtay wax fasiri jiray boqor uma hubta inaad waxaanaad aragtay wuxuu ihi waan arkay oo haa waan huba wuxuu dhahay ninkii fasiraya riyada wuxuu idhi ehelkaagu siduu u dhan yahay midh kama hadhayo waa la xasuuqaya way dhimanayaan boqorkiisuu cadhooday ninkii ayuu xabsiga iyo jeelka u taxaabay ku kalaa yimi isla sidii oo kale kiina wuxuu idhi boqorow ehelkaagu way madhanayaan oo way dhimanayaan mid kalea markaa yimi kan kale eeg farsamadu adeegsaday wuxuu dhahay boqorow maxaad aragtay wuxuu dhahay riyada noocaasa baan arkay wuxuu dhahay boqorow mabruuk waar bushaaro hambalyo boqorow boqorkii wuu yaabay wuxuu dhahay haye maxaad igu hambalyanaysa igu bushaaranaysa wuxuu dhahay boqorow cimrigaagu intuu dheeraado ayaad markaa arki doontaa carruurtaadii ehelkaagaba adaa ugu cimriga dheer ah oo dadka ehelkaaga o dhan way kaa hor dhimanayaan adaa ah nin cimri dheer ilaahay uu siinayo ninkii tu farxay ayuu kii hadiyad siiyey subxaan allah markaa fiiri ereyga madiixa ah ama ammaanta ahi cajiib weeyaan sixirna uu leeyahay yacni qofka qalbigiisa ayuu kuu soo jeedinaya tusaale kale haddaan kasoo qaadanona sayidina nebi sala allahu calayhi waalihi wasalam ayaa waxa dhacday saxaabiga la dhaho cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab radia allahu canhuma ayaa wiil yar buu ahaa wuxuu seexan jiray masaajidka rasuulka ilaah calayhi salaatu wasalaam habeen buu markaa riyo khatara buu ku riyooday wuxuu yidhi habeenkaa waxa ii yimi laba malag labadii malag bay kaxeeyeenoo waxay igeeyeen cadaabkii naareed baa la geeyey dabadeedna waxaan arkay cadaabkiiyo naartiiyo wixii baan arkayo dad xitaa aan garanayaa ku jiro nacuudu billah dabadeedna ilaahay baan ka baryo waxaan idhi allahuma innii acuudu bika min annaar ilaahu cadaabka naareed baan kaa magan galay subaxii markuu soo kacay cabdillaahi walaashiioo xabse ahayd oo xaaskii nebiga ahayd ayuu tegay xabsa ummi lmu'miniin xabsu u sheego wuxuu yidhi xabsaay riyadaasaan ku riyooday xabsina nebigiiba u sheegtay nebigu muxuu yidhi nicma rajulu cabdullaahi alla wanaagsanaa cabdullaahi hadduu salaatuleyl ka tukan lahaa alla wanaagsanaa cabdillaahi
hadduu salaatuleylka tukan lahaa bal fiiri ereyg u adeegsaday nabigeenu calayhi salaatu wasalaam nabigeenu hadduu dhihi lahaa waan awoodna uu lahaa intuu maaragtay uu hadlo ayuu wuxuu dhihi karayay cabdillaahi masaajidkaygii oo masaajidkii rasuulka intuu seexday oo dadkii kaloo dhanna ay salaatuleyl u tukade u kaceen ayuu isaguna iska khuuriyey oo iska seexday sidaas maaragtay waxay keenaysaa cadaabka naareed inuu ku galo wuu awoodi karayay nabigeenu laakiin ereyga ka horreysayad eeg nicma arajulu cabdallah alla wanaagsana ninkan cabdillaahi la dhaho hadduu tukan lahaa salaatuleylka saa aawadeed waxaanu leenahay malab ugu dar daawada qadhaadh markaad rabto inaad wax dhaliisho ammaan ka horraysi waxaad dhahaysaa alla fiicnaan lahayd haddaad saa yeeli lahayd alla wanaagsanaan lahayda haddaad sii dhammaystiri lahayd alla wanaagsanaan lahayda maanta haddaad sidaa yeeli lahayd nin wanaagsan baad ahayd gabadh fiican ayaad ahayd maanta way kaa jiibsatay qodobkaagii iyo fikradaadiina waad gudbisay iyo dhaliishaadiina waad gudbisay qofkiina waad soo jeedisay oo ammaan aad ku soo jeedisay kadibna sidaasoo ku qaatay qadhaadh wixii qadhaadha ayuu malab ula liqay markaa iyo sonkor iyo wax macaan buu la liqiyo macmacaan subxaan allah qodobka kale ee shanaad markaa waxa weeyaan inoo saamaxaya inaad soo kasbato dad fara badan ama bulsho badan aad hanato waxa weeyaan waa inaad ka hadashaa mar walba maxaa inaga dhexeeya wixii inaga dhexeeyaad ka hadlaysa oo adiga markaad tahay maalan ganacsade haddii aad baacu mushtaraat ama siyaasi aad ama wadaad aad tahay waa inaad dadka kala hadashaa idinka iyo dadka waxa idinka dhexeeya haddaad wax adiga ku khaasa maantaba wadid dadku kuma dhegaysanayaan haddii qof kale warkiisa aad ka sheekeynaysidna dadku kuma jeedaan wax idinka dhexeeye adigana hadlaya iyo dadka kale waa inaad uga sheekaysaa oo aad uga warantaa oo aad xoogga saartaa marka wixii idinka dhexeeya haddii aad ka waranto dadku way kusoo istaagayaan waayahay nebiga ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala markaynu la doodayno maaragtay diimaha kale diinta yahuudiya nasaarada wuxuu ilaahay uu yidhi waxaad ku dhahdaan marka hore ugu yeedha maxaa inaga dhexeeya qul ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum waxaad ku dhahdaa nebiga ilaahayow ahlulkitaabow yahuudiya nasaaray u kaalaya maxaa inaga dhexeeya erey annaga iyo idinka inaga dhexeeya oo aynu ka simannahay aynu isugu nimaadno bal marka hore miiska wadahadalka soo fadhiista aynu wada hadalno oo aynu doodno aynu kadibna isla waafaqsanno bal maxaan isku waafaqnay maxaa inaga dhexeeya wixii maaragtay laysku khilaafo hadhowaba laga hadli doonaa taasna haddaad mar walba ku dhaqantid oo qofka kaa hor yimaada aad mar walba kala hadashid waxa adiga iyo isaga idinka dhexeeya waxay keenaysaa inaad dad fara badan aad kasbato oo aad soo jiidato qodobka maaragtay toddobaad ee ka mid ah qodobada maaragtay ugu muhiimsan ee aad ku kasban karto dad fara badan waxa weeyaan waa inaad dadka la tashato taageerona aad ka dalbato ma aha taageeradaad ka dalbanaysid lacag inay ku siiyaan maya ee dadka waxaad weydiinaysaa mar walba fikradaada ma noo sheegi kartaa fikradaada maxay kula tahay aragtidaada aragtidaada waad nala wadaagi karaysaan ha nagala bakhaylin ra'yigaaga saa aawadeed waxaa isticmaala arrintaas kambaniyada waaweyn iyo sharaa'igta waaweyn ee ganacsadayaasha ah ee heer ka gaadhay ganacsiga iyo baac mushtarka markaad aad gasho dukaankooda waxaad arkaysaa warqad buu ku dhiibaya wuxuu ku leeyahay fikradaadii aragtidaada maxaan ka bedelnaa halkan maxaan kusoo kordhinaa maxaanad ku cajibinin yacni qofkii waxaad dareensinaysaa in uu horumarkan aad samaynaysid inay dadku kula leeyihiin qofku markuu ra'yigaaga kugula darsado ee uu talada uu kula wadaago horumarka aad samaynaysid wuu kula leeyahy dadkiina waad ku soo jiidanaysaa dadkuna arrimaha noocaasa aad bay uga helaan waanay jecel yihiin tusaale haddeen kasoo qaadano sayidina nebi sala allahu calayhi wasalam nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeyaan dagaalkii beder ceylkii beder ayuu yimi isaga iyo askartiisi iyo ciidankiisi dagaalkii beder markii la gelayay dabadeedna saxaabi ka mid a saxaabadii baa la hadlay oo la dhaho magaciisa xubaab ibnulmundir wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow ceelkan waa adigan degaye ceelkan ma waxaad u degtay waxyi kaaga yimi xagga ilaahay baa ku faray oo annagu aanaan talo ku lahayn waa kow mise waxay ka ahayd un xeelad iyo farsamo dagaal wuxuu nebigii ilaahay uu yidhi maya waa xeelad iyo farsamo unbay aniga iga ahayd wuxuu dhahay haddaba rasuulallow xeelad iyo farsamo hadday tahay aragti ka wanaagsan baan haya wuxuu dhahay haye bal soo daa wuxuu dhahay xubaab ibnu mundir rasuulka ilaahayow ceelasha shishe ee maaragtay innaga horteenna ah aynu tagno ciidankeennu ha ruqaansado ha la aaso ceelasha hal ceel keliya ha laga soo reebo ceelkaana dhabarkeenna ayaanu yeelaynaa
kadibna biyaha intaan kasoo dhurno ayaan meel dar ah oo dhulka ayaan biyaha ku shubaynaa ilaan hadhow haddii dagaal la galo waadaanta biyaha lamaantaba cidi kama shaqayn karayso waa dagaal baa lagu jiraa dhulka biyaha ugu shub oo darkaa biyaha dadku ha ka cabaan gaalada quraysheedna halkaa ha ku biyo beelaan oo oon iyo haraada u dhintaan nabigeenu muxuu yidhi walla ra'yi baad ishaartay walla aragti baad ishaartay oo aad noo tilmaamtay wuuna ku dhaqaaqay waanu maaragtay fuliyey ficilkii sidii baanu yeelay subxaan allah fiiri markaa saxaabigaasi markuu aragtida uu soo jeediyey wuxuu dareemayaa in uu horumarkan ay muslimiintu samaynayaan inuu qayb uu ka yahay inuu isagu uu fikradda iyo aragtida uu ku darsan karo oo maaragtay marnaba aanay colaad iyo cuqdad aanay ku gelaynin ayuu halkaa uu ka dareemaya sida maaragtay saxaabiga wanaagsan uu nabigeenu uu kula dhaqmay ee uu tusay in uu qayb ka yahay maaragtay aragtida talada iyo maaragtay wax isweydaarsigaba qodobka kale ee markaa waxa weeyaan inoo saacidaya waxa weeyaan in aynu kasbano dad fara badan waxa weeye waa inaad qofka booskiisa iyo istaajisaa qofka booskiisa waa inaad istaagtaa sidee booskiisa u istaagaysa maalan dadka waa inaad cudurdaar u yeeshaa qofkin cudurdaar waa inaad u samaysay yacni qof baa qaldamay cudurdaarkiisa iska aqbal tusaale haddaynu soo qaadana maalan nebi yuunus calayhi salaam ilaahay wuxuu u diray calayhi salaam magaalo la dhaho ninawa magaalada ninawa aad baa la yidhi ninawa markaa halkii uu ka aadi lahaa oo uu dacwadda dadka ugu yeedhi lahaa doonni buu fuulay oo marka buu fuulo badduu iska aaday oo magaalo kale u aaday marka waxay ahayd arrintaasi arrin aan saxsanayn nebigeennu muxuu dhahay markuu arrintaa uu ka warramayey booskii nebi yuunus buu isdhigay muxuu dhahay nebigeennu laa tufadiluunii calaa yuunus ibnu mata hadhihina moxamed baa ka fadli badan yuunus ibnu mata nebi yuunus calayhi salaam waxaa kaloo xadiid kale uu ku yidhi yaanu weligiin midkin dhihin anaa ka khayr badan yuunus ibnu mata weliga yaanu dhihin anaa ka khayr badan macnaha adigu booskiisa isdhig bal yacni duruuftii iyo xaaladii markaa ku xaydaarneyd nebigaas booskiisoo kale bal isdhig adigu subxaan allah yacni qofkii haddii aad cudurdaar noocaasa aad siisid waxa weeye waxay keenaysaa in dad fara badan aad ku kasbato oo aanad hanato haddaad maaragtay mar walba cudurdaar u samaysa arma ereyga noocaasi qofka ka soo baxay armuu uga jeedaa sidaan armay sidan ay tahay armay xaaskiisii iyo maaragtay mushkilad caa'ile ay jirtaa deetana uu erey cadho ah uu ku hadlay haddaad qofka maaragtay cudurdaar aad u samaysid mar walba waxay ka mid tahay waxyaalaha keenaya ama sababaya in uu qofkii uu kasbado dad aada u fara badan oo uu hadhow tolan uu ka dhaadhicinayo fikradiisa iyo wixii uu rumaysnaa ama uu ganacsigiisi iyo baac mushtarkiisii iyo maaragtay adeegii badeecadii uu iibinayay uu ka iibiyo muddo aada u dheer ta kale ee maaragtay soo raacda oo ah qodobka sagaalaad ee dadka ku sababaya inaad soo jiidato oo aad kasbato waxa weeyaan waa inaad run u sheegto haddaad tahay siyaasi beenaale ah haddaad tahay macallin beenaale ah haddaad tahay wadaad beenaale ah haddaad tahay ganacsado beenaale ah maalin haa waad iqaldi kartaa been waad ii sheegi kartaayo waad iqaldi kartaayo shaadh intaad iga iibisid tarabalegas l ah oo 3 egas iyo l ah intaad iga iibisid oo iga weyn subxaan allah oo khamiis oo kale igu ah waad igu qaldi kartaa maalin laakiinse kalsooni dambaan kugu qabayaa ma jirto subxaan allah kalsooni dambaan kugu qabayaa ma jirto dibna kuguma soo noqonayn laakiin hadduu ganacsaduhu uu yahay nin fariida oo run ka sheegaya ganacsigiisa wuxuu kama fakero wuxuu maalintaa iibinaye wuxuu ka fakeraa 100 sannadood qofkani sidee ayuu 100 jeeroo dambe kugu soo noqonaya si aawadeed been uma sheego beentu waa ka xaaraan oo run ayuu sheegaa maradani xagee ka timi waxay ka timi China ka timi waa suuf ama waxa weeyaan waa bac ama waxa weey waa cudbi wuu sheegaya waxay tahay siday tahay baan ugu sheegaya mana qaldayo dadki qiimahana intaasan ka siin cabirkiisu waa inta markuu runta qofku uu ku dhaqmo waliba khaasatan ganacsaduhu waa nin raganimo leh waa fariid qofka noocaasa kambaniyada waaweyn ee dunidu markay wax iibinayaan run bay ka sheegaan يعني halkan waxa ku qoran ingredients wax walba muxuu ka sameeyay mesela cuntada markay iibinayaan waxana ka sameeyay kana ka sameeyay hadii hal maalin lagu qabto isagoo been sheegaya company-ga iyo shirkadaasi sida u dhan tahay dhulkay galaysaa tusaale ahaan shirkadda Facebook ee social media ugu weyn ilaa hadda waxa weeyaan haday maalin dadka isticmaala ay adeegsada ay been u sheegto arrintaasi waxay keenaysaa inay balaayiin lacaga ay hal ilbirqsi gudaheeda ay khasaarto saawgeed ha ka fakirin hadaa tahay nin fariida hadaa tahay gabadh fariidada oo ganacsata ama siyaasi ama macallin ama wadaada ha ka fakirin weliga maalinta waxa ku yaala ka fakar mustaqbalka iyo
indheer garad noqo oo meel fog ka fakar markaa run ku dhaqan oo dadka been ha u sheegin qodobka ugu dambeeya ee tobnaad ee dadka kusoo kasban kartid aad ku hanan kartid waxa weeyaan waa inaad dadka u mahad celisaa mushkilada ugu badan ee dadka Soomaalida maba yaqaanaan ereygan waad mahadsan tahay ha subhanallah xataa maaragtay dadkii cadaanka ahaa markay u yimaadeen wadamada reer galbeedka oo ay عيد سيئة نقولي لسيئة يوم مارت عروتو دي سكول الله قطري أو يجينا مارت شرعية لسيئة لدجية باسبورية وحول بالوقبتي ولي قد مرة هيان ثانك يو ود ما هتسنت سبحان الله هل كو ملاها كلية بلشوين ككلية دوني دو كنا لوردن هذا وحي يرو بسيطة مركز دو قبتي دو كلية ثانك يو ود ما هتسنت سبحان الله أديك هذا مركز آتهاي قف ربط بلشو يدد إناد فكرة جارسيسو دين تادا حمبارتو إناد جارسيسو بعمش تركاجي جناعسي قاعد جارسيسو سياسي تو برنامج كاجي هرمار كاجي ربتي يو فكرة عاد ربطو إناد لو دادك وإناد قفك وحي وكوق بتي أبال أهاي وكوق قال وإناد وجم هاد عيسى هاي راتو عمها ويناتون سأودد أي النبي عليه الصلاة والسلام وحو إنا فري أو وحو نقولي من صنع عليكم بالمعروف فكافئوه هدي قف وناك دين قالوا أبال جد وحي وناك وكوكو قالوا أبال جد وحكى النبي جنو نشر عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لم يشكر الناس قفك يعني إلهي مهد علينين قفك أن دتك مهد علينين هدي دتك إلهي وأبورتي وناك وكوكو قالوا أدو مهد علم ويدو أو وحي الرأي بسيط كهي فضوضاء كم مهد علم ويدو سيدي بد إلهي نعموي كيسوا وين وجم مهد علم كرتها ما بدي عكرت مرك سأودد وين يلا تاسي فضاء إن وحي لجو قلو حتى قاريرو لجو سيقادها النقطة قفي لجو سيقادة دراولكي وين دوجا مهد عليسا أو الترينين أتكو سميسا قدرك قدام بيسا يعني كوك جبيننا وحويا وإنه قفكو ووجهي سوا هذا وجه فرن أو دول عدين له أو مركا وحوين ابتسامة ولي هذه وجه جاء أيكو قرنتها إنه يعرو أيكو قرنتها إفري مرولب أيكو قرنتها تدكوي كيعيان إلهي بقرآن كينس إنه وشجي نبي جينا مركو كور رمي محوري ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هذا تينين أدق معانج قلبسان أدق نجحه ومد إلهي ودم وكايا الله قفنا هدو وجهيس وعرك موتشيو أو أنا قسلين أو أنا فرفرنين إسكت ديني بنادم وكايا حولها كعرية جيلي يا أرجي أو نجح قاعدة ماشى يا عيب ذاكيس سبحان الله سأود ومهم أي أتهاي قف كستا أو ربع إنه أمت وكسبضة أما بلشة ولا نولاده وإنه مارته ولا العادية دول العادين تاسنا وين النقطة ميد ناتشرال أو طبيعية ميدسك كان ما وبأسكال أتسك كان سيد ماها وين النقطة ميد طبيعية سيدي بنكو كان كرام ميد طبيعي يعني قفك كلها تلاقي مركو قصل لا قصل مركو هذا مارتي هذا الكاجيو سوتشيس يعني قفك هنا دنين يسوع هذا درين يشعور تأهيل قفك هنا دنين يسوع أو أدوجي جاء أوفريسو لكن هذا قفك هذا يو قفك وجهي عركة أيجيو أما أفكي يدبنهن تسكت حري مارت سبحان الله تيجي دقي سني يا مركا قفك يا كدنين يد عدكوما يمن يسمرك على الباب كأجيكو قرين نو هنو سوقلي تيجيكوما سوقلي سمرك سبحان الله waxaan leenahay walaalayaal qodobadaas aynu tilmaamnay ayaa qodobada ugu muhiimsan ee qofka ibn aadamka uu ku kasban karo bulsho uu ku kasban karo dad fara badan hadii uu ku dhaqmo nooc doono qofkaasi ha ahaado siyaasi ha ahaado baamushtara ha ahaado haween ha ahaadaan wadaad ha ahaado caalim ha ahaado qofku doona ha ahaado haduu dhaqamada noocaas uu leeyahay akhlaaqda uu leeyahay wax badan ayuu qabsanaya halka waxaynu insha Allah taala ku soo gabagabeynaa qodobadii aynu ka soo xiganay ama ay ka soo xulanay kitaabkii How to Win Friends and Influence Women sideeba dad saaxiibo u samaysan kartaa dadkana aad u saameyn kartaa oo aynu ku sameynay islamization islaaminay oo shahaadada kitaabkii u qabanay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh